بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين maanta taariikhdu ay tahay 3 bishii 11/2019 waxaan shirkan jaraa'id u qabtay in aan ka warbixiyo xaaladaha caasimadda iyo hagee loo socdo xaaladda caasimadda Dhuusamareeb ee xarunta maamul goboleedka Galmudug waa nabad wax arqalada ah iyo wax culays oo ka jira ma jiraan waxaan u cadeynaynaa bulshada Soomaaliyeed cid kasta oo danaynaysa magaaladu waa amni ammaankeeda waxa gacanta ku haya ciidamadii isku dhafka ahay ee hore lagu wareejiyay ciidamada dawladda ayaa gacanta ku haya gaar ahaan waxa gacanta ku haya ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka booliska waxaan leenahay magaaladu waa nabad wax arqalada iyo wax isku socod bulshada wax u dhibaya midna kama jiraan wax ka dhaco dhibana ma jiraan waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo maadaama aan ahay gudoomiyaha degmada duqi caasimadda maamulka caasimaddu inuu diyaar u yahay in uu la shaqeeyo dawladda qaranka laamaha amniga inay ku gacan siiyaan dardargelinta iyo diyaar garowga loogu jiro sidii maamul loo dhan yahay loogu dhisi lahaa Galmudug waxaan diyaar u nahay inaan wax ka dhisno Galmudug cusub waxaan diyaar u nahay cidii ku soo baxda hore Galmudug ay doortaan oo dawladdu goobjoog ka ahaato inaan si garab istaagno lana shaqeyno wax badan baa halkan joognay Galmudug oo kala qaybsan baan joognay Galmudug oo isku timid baan joognay Galmudug oo mar dambe beelihii dhamaantood loo yeeray ee gogashii nabadeed halkan lagu fidiyay ayaan joognay intaba gacan baan ka geysanay markasta waxaan diyaar u ahayn horumarka Galmudug inaan ka shaqeyno waxaan u sheegaynaa bulshada caasimadda bahda reer Galmudug dhammaan inay gacan ka geystaan sidii Galmudug kala qoqobka iyo kala istaaga ay ugu gudbi lahaayeen maamul cusub oo loo dhan yahay oo dhameystiran sidii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ugu baaqay inaan u wada qaadano una istaagno dawladda federaalka waxaan ka rabnaa meeshan maamulkii ka jiray iyo awoodii ka jirtay iyo askartii ka jirtay wax walba dhan ayaga lagu wareejiyay Galmudug cusub oo loo dhan yahay oo dhameystiran inay noo dhisaan waxaan ugu baaqayaa cid kasta oo awood ku leh oo arrin ku leh dhismaha Galmudug loo dhan yahay inay maantay inta dhiman lagu dhameeyo tanaasul isku tashi iyo wax isla toosin waxaan leenahay caasimaddu maamudna iyo bulshadeedu in xabad laga korrido mana aqbalayn horena waa u sheegnay haddana waa sheegaynaa cid u soo wadatana ma ogin laakiin waxa la balaayadu daba la qabta malaha gafuur la qabtay leedahay waan ka hor dhacaynaa waan sheegaynaa xabad in laga ridana xal ma ahan annaguna ma aqbalayno anoo ku hadlaya afka bulshada caasimadda gaar ahaan madaxda qaranka waxaan leenahay hore u socda hawshiina wata garbihiina nahay shacabku waa idin la shaqeynayaa laamaha amniga waa la shaqeynaynaa adunkuna dhammaystira heshiiskii iyo hogaankii fiicnaayo halka aad ku timaadeen ilaahay idinkiis maadaama madaxda Soomaaliya aad tihiin meel ka sokaysa ma idin malayn hore u ambaqaad ayaan idin leenahay hawlaha degmada dad baa waxay qorayaan baraha bulshada waxba saanay waxaan sheegaynaa degmadu waxay shaqo bilowdaa halka saac nuska saac ilaa 12 laga gaaro ummadda shaqada bulshada waa loo hayaa shaqa maalmeedkeena sidii bay u socotaa wax isbedelay iyo wax arqalada midna inaysan jirin fariinta bulshada caasimadda aan u diraa waxa weeyaan marka hore inay u istaagaan nidaamka dawliga ah ama midka state-ka loo dhisaa ha noqdo ama midka qaranka oo la gacan siiyo ha noqoto fariinta labaad u diraa waxa weeyaan sidii hore u gacan siin jireen laamaha amniga inay bulshadu kala shaqeeydo amnigu soo u sugnaan lahaay cadawgeeduna waa al-shabaab baa leenahay cadow kale ma leh billahi tawfiiq